السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم بخير. ومالو وين maanta waa maalintii Soomaaliya xorriyadda qaadatay 1960. Alxamdulillah dadkan waan ku jiro waa joogay dad lama qasbiyaan. Kolay intii joogta oo xasuusan karta wixii markaa dhacay ayaa laga sheekay karaa waxa. Xasuusan bas asal Soomaaliya aan loo xidhi jiray ayad quraanka Soomaaliya ka sheekay balse loo wax la qaadan oo loo waxno. wax badan maanta ma hayo waa iska maalin farxadeed kaliya waxaan rabaa inaan iraado in aadamku wax waa lagu qiimeeyaa koow waxaa yidhaha qofkaan caqli ma leeyahay waxaa lagu xijiyaa aqoon ma leeyahay waxaa lagu xijiyaa waadnimo ma leeyahay waxaa lagu xijiyaa dhaqaale ma leeyahay intaas markuu haysto waxaa laga rajayn kara waxaa weeye inuu qof muuqda noqdo qof muuqda oo meeshii looga baahnaa jooga inuu ka soo baxo hadduu intiiba haysto meeshii laga rabo uusan joogin waxbaa khaldan Soomaaliya sidii kale dadka qaarkood way soo wada inta badan duruufo kala duwan iyo dowlado kala duwan soo marnay dowlad walba noocay duruufo kasbaad duruufo soo imaanaysa haddaan intaan soo gaar waxa ka xasuusto ama intaan ka aqriyay sheekooyinka dagaalkii 1964 ee wasaaraha shacabka kala wanaagsan ودورشة دب هالورد وتجارب وتجارب. ورسولة كعنوا وقت تجارب منا. كعنوا وقت بودي. كورما 1964 توبيا ولي بالكوميس تجارب كذا كذا. ما أنتم واحد كستو هو أما كانوا كنا ما هيصل. أفرق من الشباب. وإس organize كريا دم كدم سدلوا كويس. إلا دم في حتة. dadkaan diyaar ahayn inay shaqo qabtaan oo horta waa fikiraysa waqti badan qaadatay haddii la isku organize gareeyo dadku waxay sheegaan nimankaas waa afarta markay ugu bataan dadku say sheegaan afarta 12 milyan inta ka badan qodobaa inta kale maxay qabtaa intaasoo dowladda soo marna maxay qabatay sibada dowladda aan haysana maanta organize ma kuwi ka horeeyo ma haddii yihiin shaqo waxay ka كشعب وشباب مرة لكن دول واحد لكن الشعب والدنيا اللي جاهرة دول اللي جاهرة شيل كلها هي جاب كشمال شباب وشيل كل مفروض قرن خفقة سينا كبر لو بورنا وشارع السينا ومحامي بايع بيجا دولة بايع بايع بيجا خلق قاعد دين الآن هسكت جشتو لا عمل خلق لكن دين الآن هسكت جشتو لكن سبب المحامي ودي هنا بس organize كرينه إلا أنت هبدأ عن شيء كل ما نسمع واحد دغالي ما نسمع حوق ما نسمع أقوم ما نسمع وينون نسمع سيمبل كده مو بالعسكرية اليوم شعب يقول لن مسلم ولا وإن يرى كان حوالي خلق كان كلام متوسط حقيقة يا سوماليا دولة تنكتم بيس أما تنفت إلى مسؤول أما تنكتم بيس إلى الغرام تطبخ وقدر عسكرية لكن حدين الغرام ده ماشي قلت الجول بيسوي العروس والعقد يقول بعد ما أنا بريت الروح السما يقول بدل كتير العقد لكن كان تاريخ في عن كتير الروح السريع قفز سكان يهمل ولا خير الله سريع ولا في عمل كتير لكن كل يعني مثلا على وتوب هذول التام قبارة يا كل يوم سمايا على توب بنت كحام حقيقة يا إلهي وسمايا وكان توصل إلهي مساعد إله الصومالي وقام توصل مساعد إله الصومالي هو فكرة وعقل جود وسمح على عين وسأدوية على عين وإن الدين هي الدلك والشقية ومحمد جودي إله يكون من قابتا وأنقرأ كلمة وحصحة يا وحخلد إله سبحانه مدام تدو هاد التام مدام سيرا وحاملين محرم من يسلس مركو حال الله سبحانه يبنى عليه ماي إنكم حسن كسر دوالة مرة مرسل الاتحاد كود لوليو سومالي لهمش كود عليه تعالى كود عيونين وحكى له كود عيونين إلهي وكان في عنده وكان وطن كاس إلهي وكسر صار وكان في عنده وطن كاس كود عليه كهذا وكان له لين واحد توسع يمكن
waxa maanta naga khaldan oo dhan waa hoggaan la'aan hoggaanka haddii la soco wax kasta waa toosaya waa nasiib darro maanta inaan dad ku qancino maraba maanta inaan ka hadlo siyaasad maadaama aad reertaa laakiin waxay la tahay inaysan habbooneyn maanta inaan dhaho abuukaro miskiina anoo ka maaragtay soomaaliya inaan dhaho war abuukaro hala siiyo waan rag maya waxaan u diiday koleyga fahmaysan maraba afkeenaan ku dhufaa waxaan idinka rajeynayaa qof alla qofka awoodo dowladda oo dadka ka sheekaysanaynin kuwa hataa halo aqli celiyihiin I think kuwa hadda maanta jooga inay aqoontana leeyihiin labada nin hadda waddanka usoo aqoonna waa leeyihiin waanimana waa leeyihiin weliba waa qurbaawiyiin soo arkay adduunka nidaamka fiican ku jira yaqaaniwa waa nasiibdaro inay ka liitaan kuwa waddankaan ka bixin waxna balcanaah marka ilaahay waddanka hoggaan fiican ha usoo ilaahay soomaaliya hoggaanka u toosiyo soomaalida washington joogta waxaan rabaa inay kala gartaan arooska xafladeedka lagu aadinayo kuwa dawli waa maalin farxadeed soomaalida la dabaaldig arooska ku tarimaaniyo qofaa la soo dhaweynaya bal waa ku dambaabeeba dad qaawala imaanaya guustikaana tumaya dad maxaa qalaysa maalin farxadeedka soo socota insha allahu ilaahay nagaasiyo waxaan rajeynayaa dadku intaan uu ka badan doono balka ugu baxaya haween ilaahu soomaaliya hoggaanka ku toosi آمين. والله سنتي.